السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي واد السلامي مركل يوم وقال كلام عصب صبح نمو وناكسن سود واد أصحابي وحنا وضع دو إلهي قدره إن قصة عادو عتشيب كل رجل نيسا ولال أما أبو أها قف نلش لدالا دعا ilmahay kira uga jiraan deyn fara badan ku maaratay lagu yeelanayo shar yar oo waxba ahayn ku shaqeynayay ayaa wuxuu akhristay suurad kamida quraanka kariimka 14 jeer maasha Allah tabaarakallah 14 kaas jeer markuu akhristay mar qura ayaa waxa isbedeshay noloshiisa hal mar inta ka kacday hooseyntii oo nolosha dhexe dhaaftay ay wixii tagtay nolosha sare maasha Allah tabaarakallah ilaahay baa maaragtay ku hadeeyay qofkana waxa fiican markasta markuu dareemo in waxa soo galay ku yar yahay in nolosha cariiri ku tahay in imkankiisa uu hooseeyo iyo markuu caafimaad darro dareemo intaba wax walba inuu quraanka ilaahay uu ka raadsado daawada ama caafimaadka sida saxdaana quraanka way meeshii daawadeen ku jirto maasha Allah ninkaanayto waa nin adigoo kala ah qarniga nooshahay nool maaragtay maasha Allah tabaarakallah waxa adiga akhrisan kartaa akhristay la doonaya inaad maaragtay ku dhiirato dad badan oo waxa jiraan maanta noloshooda dhulka ay tahay ilaahay uuntaan isku xireynin waajibaadka lagu leeyahay ilaalinaynin sunnooyin warkooda iska daa haddana doonaya inay wadada u fiicnaato taas hay'aadha sugin ilaahay wuxuu yiri qoom haday isbedelaan xaalad wanaagsan ay ku jireen ay iska bedelaan xaalad xun galaan ama fisqi ama dambi iyo dib ay galaan iyagoo iyaga iska saarin ilaahay kama saaro ma maqashay nolosha amaanta ku jirto marka hadii adiga aad ugu talagelin inaad ilaahay u bandhigato oo antaad waajibaadka at least iyo waxa lagu leeyahay meel saarto inaad ilaahay gacmaha u taagato hadaad ku talagelin waa ku jiraysaa ma fahanti ninkan markuu arkay sida nolosha cariiri ugu tahay sida ciyaalkiisa 7 ciyaal qof heesto maanta imka yar ku shaqeynaya kira ku jira dhakhtar loo baahan yahay biil laga rabo waxbarasho wax walba ma arkino ay ku hooseeyaan maasha Allah ninka ilaahay wuxuu waafajiyay suurad quraanka kamida inuu akhristo 14 jeer 14 kaas jeer markuu akhriyay maasha Allah mar qura noloshiisa way kacday ilaahayna wuxuu u soo jeediyay qalbiyo kale u soo jeedshay Allah markaas waxaan ku dhahay subhanallah ilaahay mar qura noloshiisa bedelay marka walaalay qaaliga aan ka faa'iideysano waa kaliib aad u cajiib ah qisadan aan noo wado aan ka faa'iideysano walaalaha kalena aan u sheer gareyno si ay uga faa'iideystaan wanaaga iyo khayrka marka aragto kaliga la iskuma koobo walaalaha kale loo sii gudbiyaa si ay uga faa'iideystaan khayrkaas iyo wanaagaasna ay u helaan iyagana adiguna markaas ajiraad ku leedahay marka walaalayga qaaliga waxaan leeyahay qof walba oo muslim ah oo mushkilad iyo dhib dareemaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ugu bedelo farxad ha ugu bedelo farax iyo wax oo ku farxo iyo faraj degdega iyo caafimaad intaba ha ugu bedelo ilaahayna qalbiyadeena iyo qulubteena ha ka dhigo kuwo kitaabka ilaahay isku daweeya u soo jeesta shifa iyo caafimaad ka raadsada Allah naga dhiga dhamaanteena shalax bidimaana soo gilo raali noqda qisadan cajiibkaana aan wada dhageysano ana ka faa'iideysano haduu ilaahay qadaro wanaaga markuu bismillah dhammaan waxa wada sugayseen walaalaha qiimaha iyo qaayaha badan qisadii walaalkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo farajka u furay farxadana alla uu dhaxal siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhammaanteen farxad hayna siiyo walaalkii ilaahay uu ku irsaaqay farxadda iyo wanaaga markuu akhriyo suuratu an'am sidoo aha walaalkaas wuxuu ahaa walaal saaxiib ciyaal ah oo waxba aan haysan yaani shaqaale ah isla markaana shaqada uu ka shaqeeyo lacagta uu ka qaadanayo iyo lacagta kirada iyo ilmaha biilkooda ay kala badan yihiin
wuxuu lahaa 7 ciyaal ah iyo ka badan lacagta meesha uu ka qaadanayna waxay ahayd lacag yar oo 100 iyo xooga ah aad iyo aad buu ahaa qof u fakara maxaa yeelay marka aad leedahay intaas oo ciyaala lacagta aad qaadanna intaas ay tahay duruuf kalena aad wax kale oo aad yani ku caawina aadan haysanin waa dareemi kartaa oo qofku wuu dareemi karaa qof waalid ah unbaa dareemi karaa yani murugtaas iyo xanuunkaas qarash aad u yar oo aan kugu filayn iyo meel aad u ciirsto ama albaab kale aysan jirin walaalkaas wuxuu yidhi allah barakeeyo waxaan daa'imo yidhi suuratul baqara in aan laazimo wuxuu yidhi suuratul baqara suuratu raal hada suuratu ancaam raal hada waxaan laazimay suuratu ancaam wuxuu yidhi waxaan ka akhriyay 114 jeer maalintii aan khatimay suuratu ancaam 114 ama 114 maalintii aan khatimay farajka fiir waa kane allahu akbar kow wuxuu yidhi waxaa ii yeeray ninkii aan u shaqaynayay kadibna wuxuu i siiyey lacag 5,000 oo dollar ayuu gacanta iga saaray waa qodobka labaad wuxuu igu yidhi boos yar oo aan meel ku lahaa booskaas allahu aclam ma dhaxal buu ka helay ma qof baa siiyey mar hore meel oo ka helay gatay ma qeexi karo wuxuu yidhi booskii halkii aad ku lahaydna aniga ayaa dhisayo oo kaaga qayb inta ugu badan aniga ayaa qaadanayo waxaad samaysaa dhis booskii u dhis ilmaha halkaa ka saar kirada ay ku jiraan lacagtii mushaharkii aad qaadanaysana intaas ayaan kugu dara wuxuu yidhi hal mar bay noloshayda isbedeshay 114 ancaam markii aan akhriyay ayaan waxaa la kulmay buu yidhi 3 marxalo oo degdeg ah mushaharka in loogu daro lambar 1 lacag in la siiyo lambar 3 gurigii in loo dhiso lambar 3 yani lambar 1 mushaharka in loo kordhiyo lambar 2 gurigii in loo dhiso lambar 3 lacag socota oo xiran in gacanta laga saaro haddaba aniga qisooyinkan idiin soo gudbinayo ma aha iska dheh quraanka alle meesha la akhriyo waa barako adiga diyaar ma u tahay in aad ka baxdo nolosha hadda aad ku jirto iyo ciriiriga iyo murugta waxaan arkayaa dhalinyaro fara badan oo mid walba duruufo kala gedisan WhatsApp-ka igu soo diraya ballankeenu waa suuratu ancaam isku day haddaad taqaana suuratu ancaam 114 iyo ka badanba in aad akhrido insha Allah taala waxaan iyadana idiin soo wadaa qiso kale oo suuratu ancaam ah oo walaalka qisada ii tabinaya oo walaalka u sheegay aniga aan ka soo guuriyay oo ah saaxiibkay aad wada garan doontaan qisayadan ancaam ku saabsan oo iiga sheekeeyay maantana uu yahay qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu waxsiiyay barakaysanna qisadaasna waa idiin soo sheegi doonaa insha Allah taala iyadana qisada waxay noqon doontaa haddii Allah hawada uu idmo afraad ama qisada shanaad bay noqon doontaa biidin Allah taala ballankeenu waa suuratu ancaam ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى إن كفايسن هنودو سورة أنعام ومغليسان عجيب وايه سويلك وقرستي مرقرة إلهي ننشي سو بدلي ولا لبدنا وحاجرة حتى أنا تكارت أخرسان حتى أنا أخرسان آية الكرسي حتى نرهوي إن حلو والبماركتينو إيه هلان وحيربان والقفك بلادنك ilaahay adduunka wuxuu keenay inuu maarkino waajibaadkii lagu lahaana ka soo baxo ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo weydiisto waxa uu rabo qofku hadduu ilaahay weydiisanin shayga uu rabo ilaahay waa uu caroonayaa oo markaad ilaahay bari weyso asaga ku caroonaya halka bilaadanka maanta markaa wax weydiiso bari ay ku arkaan ay ka naxayaan ilaahay markuu codkaaga iyo wax weydiiskaaga maqalo gacmahaaga marana soo ma celinayo waana kugu farxayaa marka ilaahay lagama xigo qof kasta oo muslina sujuuda salaada sooma iyo waajibaadkii lagu lahay guta ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka xigto malahan laakiin haddaad tahay qofan salaadaha ilaahay dukan qofan waajibaadka ilaahay ku lahay aan sameynin haddii aad tahay waxaad ogaataa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala dulqaadkiisa
aa ku nooshahay. Anaga dhanba ilaahay dulqaadkiisaan ku noolnahay, taayamaan sugaynaa. laakiin waxaad ogaataa adigoo ilaahay salaadiisii waajibaadka ilaahay kugu lahaa dayacay. qofkana markuu waajibaadka ilaahay uu dayaco waa maruu xarig ka furtay oo wuxuu dhiman aysan jirin. dulqaadkiisa waxaa ka mid ilaahay adigoo noocaas ah, salaad dukanaynin, ilaahay waajibaadkiisa ilaalinaynin, xalaal iyo xaaraan ka dhowrsanaynin, wax walba wadunta sameynaya, inuu ilaahay haddana caafimaad ku siiyey, inuu weliba ku irsaaqayo, irsaaqna ku siinayo, amni ku siinayo, adiguna aad ku dhoohan tahay oo aad ku jirto qaflada noocaasa, maalin iyo xilli lagu soo qabanayana aadan ogeyn. marka waxaan leeyahay qof walba oo salaada ilaahay dayacay inuu maanta wixii ka bilowda ilaahay u toobad keeno, ilaahay u soo noqdo, xarig ilaahay qabsado, ilaahayna uu baryo. asaga dan ugu jirta aayihiisa nolol adduun iyo aakhira wadana ugu jirta. haddaadan ahayn qof ilaahay subxaana watacaala ku xiran, waxaa noqonaysaa qof dulli ah, qofaan adduunkan qiimo iyo sharaf midna ku lahayn aa noqonaysaa. laakiin haddaa allihii ku uuntay xarigiisa haysato, waajibaadkiisa ilaalinayso, markaad dareento cariiri iyo waxna aad kitaabka ilaahay sunnada nebiga u carareyso, rajaa leedahay, ilaahayna wuu ku garab taagan yahay. mar hore markaa 4 bilood caloosha hooyada ku ahayd, risqiga waa laguu qoray, ilaahay baa kuu qoray. laakiin qofna waa qof wanaagsan oo baari ah oo ilaahay wuxuu u dareena sameynaya, asagiina baryaya xilli walba, adoonnimadiisa qiraya. qofna waa qof shaydaan oo dulaysto inuu ilaahay leeyahaba ama inuu ilaah la baryaba macnaha aan ku sifaysnayn, haddana raba inay arrimihiis isbedelaan. marka yacni laba wado oo isleheena isku qasbeena isma lahan, inaad ilaahay wixii uu kuu dira aad dayacdo, haddana inaad sugto inuu ilaahay wadooyinkiisa kuu furo. waa laba wado shaqo isku leheen oo isku keenaysidii. ilaahay u toobad keena, ilaahay u soo noqda, ilaahayna weydiista waxaa rabtaan. qofkaa xigaa ma jiro, ilaahay asaa ku abuurtay, adduunkaana asaa ku keenay, wax kastana asaga ilaahay kuu qorayo. maalinta caloosha hooyada 120 habeen ku ahayd ayaa 4 shay la qoray. 4 shay waxay ahaayeen risqigaaga, ajashaada xilligaa dhimanayso, iyo nolol, geeri iyo macnaha naar iyo janno wixii aad gelayso. waa macnaha noloshaada inta noolaanaysa adduunka, risqi waxa la waxaa cuni lahayd, janno iyo naar wixii aad gelayso maalintaasaa lagu qoray. marka ilaahay subxaana watacaala saas iyadoo naga dhigay, haddana waxaan ka rabaa inaan dad mudiiciin oo ilaahay xilli walba adeecsan inaan ahaano, oo wadada ilaahay uu noo jeexa ku taagan inaan ahaano. xalaasha iyo xaaraantana aad kala barato, ilaahay inaad barataan, inaad isbarto oo aad ilaahay barido, inaad barido ilaahay xilli walba, ilaahay arrimahaaga u sheegato. bili-aadan waxba aadan ka doonin, allihii ku uuntay adduunka adiga kusoo taajiyey, inaad asaga waxaa rabta weydiiso. haday caafimaad tahay, haddii nolol tahay, haddii wax kasta tahay, in ilaahay asaga weydiistaa lagaa rabaa. ilaahayna saasoo kale irdaa kuugu furaya markaad asaga isku dhiibto, qur-aankiisana aad tala saarato. mar qura ayuu ninka nolosha meeshuu ku jira ka kacay, lacag fara badan helay, shaqo maaragtay mushaar fiican helay, dhul oo isaga iska lahaayo, hore uu iskaga lahaayo suu ku helaba loo dhisay, ilmihiisi kirada uga baxeen. maasha allah, mar qura waa 14 mar oo keliya u akhrista suuradaas. marka walaalahayga qaaliga subaxnimo wanaagsan, aan ka faa'iidaysano. soo dhawaada, laagshaad komentiga waa xaggeena, fikradaha quruxda badanna waa xaggeena, qisooyinka iyo wixii ahaysaan dhiirigelinahana nala soo wadaaga insha allah, si walaalahayna dhiirigelin ugu noqoto, adigana ajraad uga hesho, khayrkana aan wada shaqeyno. subaxnimo wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.